بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح وعنا وناكسن أصحابتي ذا كحرن halkan aad baydin salaamay anoo malkaysa waxaan u soo galay siro degdeg ah inaan u sharaxo asxaabtayda creamka amal cream horta intaynu sharaxa gelin waxaan rabaa inaan u sheego hablaha Soomaaliyeed ee ku xiran barnaamijyadayda hadday noqoto halkan ay ga daawanaysaan iyo hadday noqoto dhan walba digala socotaanba hore waan idinku sheegay waxaan ku wajiga waa baasaboor wajigan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala bin aadamka siiyay waa baasaboor wuxuu ku yahay baasaboor way inaad ilaalisaa ood ka ilaalisaa waxyaabaha chemicalka horta sidiisa horta chemicalku wajiga ma fiicna subax waxaan wanaagsan dhamaantiinba wajiga chemicalku uu dilaa waxa laga yaabaa chemicalku inuu 2 cisho ku cadeeyo 3 cisho ku cadeeyo laakiin hadda wada finka dhigo cuncun kugu sameeyo fara badan oo jirkaaga kala nooc noqdo qacmahaaga iyo wajigaaga kala nooc noqdaan iyo lugahaaga iyo jirkaaga kale marka waxa wanaagsan sideedaba in wajigu noqdo wax natural oo laakiin fitamiinada cuntid fitamiinada jirka aad buu ugu fiican tahay hadduu noqdo vitamin maxay tooy D ama hadduu noqdo omega-3 fish oil ama hadduu noqdo vitamin C oo waxyaabaha jirka horta bini aadamka sideedaba ugu fiican waxyaabaha dabiiciga wax ka wanaagsan ma jirto waxyaabaha xitaa waxa jira dabiici dadku xitaa finan ku yeeshaan ay ka mid tahay shaamburada oo kale ama waxa loo yaqaan chickpeas loo yaqaan oo dad bay finan ka soo saartaa malabka oo dadka finan buu qaar buu finan ka soo anigu horta malabka baba isticmaalayaan cuna mooyaan wajiga ma mariyo finan buu iga saaraa marka waxaan doonayaa u sharaxo amal cream hablo badan oo igu xiran fara badan waa buuxan amal cream uu yimi horta dhakhtar baa sameeyo ama ma sameeyo wax dhakhtar sameeyo iyo waxa uu qoshqoshta waa kala nooc dhakhtarkii aan idinka soo daayay TV-ga oo si fiican u daawateen Egyptian-kaaba sida uu sameeyaa dalab buu ku yimaada sidii bariga hore u badnaan jiray ma sameeyo waayo dad badan ma jeclin baal guriga yaalo karaatiin iyo waxa sidaan dukaan leh ku goro waxaan jecel wax fresh ah marka la soo sameeyo dhowr magaalo loo kala diro oo wadana carbeed ka mid tahay aniga inta kale aniga soo qalan dhakhtarka la xiriiro maadaama contract wada galay marka waxaan doonayaa amal cream ina ogaataan horta dhaygu waan idin sheegay creamka day creamku waa cream cad waan iga hore idinku sharaxay waa cream cad ma baahnid inaad wax ku dardartid wax la qoosho iyo wax la qoosho iyo wax la dhiiqeeyo inta ma rabno waa cream saas waa cream cad ur fiican buu leeyahay xitaa urtiisu kuma dhibayso marka creamka cad waxa weeyaan marka hablaan u dirayaa ilaa 20 min habla jooga Norway maanta Norway waan u shaqeynayaa insha Allah taala saas uu eegaya jirkaaga meesha duntaad ka marin kartaa waa kaas marka jirka uu galaya markiiba cala duul buu jirka uu galaya subag badanna ma laha finanka hablaha subag gal waxa weeyaan hablaha finan ka soo yaabo hablaha waxay leeyihiin iyagu wax loo yaqaan oil face marka oil face ku mar walba wuxuu tufaa finan buu qofka marka wajiga la meedhaa habeenkii marka seexays wajiga wana si fiican u meedhaa si fiican oo qurux badan wajiga u meedhaa oo u kilin garaysa wajiga si fiican u kilin garaysa laakiin wajiga hadda isagoo rafsan oo shaaricaad ka timi oo wasaqdiisi qabaad ku seexatid waxa dhacay wajiga inuu filan sameeyo cuncun sameeyo foolxumo sameeyo oil farabadan dad skin farabadan baa ku koraya marka waxaan kula talin hablaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeedba hooyooyinka kaligood cararaya ee dhibaataysan ee shaqeynaya sidoo kale ordaya habeenimo maalin wayna fitamiinada cunaan jirkooda wayna fitamiinada cunaan vitamin D gu aad buu u fiican yahay jirka haddaan in yar diin sharaxo vitamin D muxuu vitamin D u qabtaa jirka horta vitamin D waxa weyn dawaa qorax ma helno oo waxaan joognaa wadana waxaan joognaa dhaxan imka dhaxanta bilaabmaysaba vitamin D wuxuu sameeyaa wuxuu ka yimaada qoraxda wuxuuna caawiyaa waxa taqwiyat bashara wajiga aad buu adkeeyaa vitamin D jirkeena uu fiican la fiican xitaa uu fiican waa qorax inuu badan ma helno dadka wadankii jooga Afrika qoraxda way iska qariyaanba alaykum asalaam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waxa laga yaabaa dadka Afrika jooga inay qoraxdii Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay iska qariyaan iska nabaanba ama markay baxayaan qasil iyo wax wajiga ku qarqariyaan maxay tooy iska qariyaan u bixinba vitamin D waxa laga helaa subaxdii salaadii qoraxda subaxdii ilaa 12 subaxnimo qoraxdaas kuma dhibayso oo kuma dilayso laakiin wixii ka dambeeya 12 iyo duhurka markay noqoto habeenkii markay noqoto waxa weeyaan casarka markay noqoto way kulushay ku dhageysa jirkaaga damage u geenaysa marka vitamin D aad iyo aad buu u fiican yahay jirka وين عمتان وده بس كجرنا يعني Soomaali وين نقعنا كنيسة تكون على إيش صباحدي أما اللقطة صباحدي مركز قراءة لازم عندي وأدق تطبل يعني ده وقت بوه هنا ده عرارة يو شقيرة يو عروس كل جيلة يو لكنها إلا فيتامين سي أد بسنو في عين فيتامين سي فيتامين إي يعني فيتامين هذا أردن شركة أد بوه في عين فيتامين سي جنوا هذا أنت مرة بدأ لين يوحد عون هذا وقت وهين حبض له كابسولة بوه في عين ده سك
markaad quraacda cuntid dukaan walbana wuu yaalaa everywhere wuu yaalaa adduunka wax la qaranaya ma aha ka faa'iideysta oo ku raaxaysta oil fish waxa loo yaqaan omega-3 ama fish oil kalluunka dad baan kalluunka ku fiicnaan bood jecel hilibkii inay cunaan digaagii oo kalluunka soo cunaan bay adagta ama wiigi mar aan helin ba calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalo marka oil fish kaasina aad buu fiican yahay bootski meel kasta uu yaalaa dukaanada weyn كان كفايدست اوكي waxaan ku soo noqonaa hadaba waxaan soo galay intaan shaqo tagin waxaan soo galay inaan ka sharaxo creamka amal cream day cream waxa loogu tala galay wal hablo qofka wajigiisa laba type baan haya type-ka oil-ka iyo type-ka dry skin-ka qofka dry skin-ka waxa siinaya kan oo kale oo wajigiisa uu qoynayo wuxuu ka ilaalinayaa cimilada aad bixaysid kulaylada waxa kugu dhacaya hanfiga kugu dhacaya qabowga kugu dhacaya dhaqsiga kugu dhacaya wajiga aad marinaysaa ka bacdi wixii aad make marsinaysaa marsinta aday ku taala المهم وين وجهك نقدر نحيي توي وح وجهك كريم مرسى ما هي تسكب بحدود عتاد بها بلا سليد من سليد الأمر يوجه أو اللي فضل ما يبي إنه وحيرة دبعة وحي لا يكون يقوم دوا سليده مركا هدينا هين سليد يعني أوريجينال أو ده محيته تمروكان كم أورجان أويل أو ده يكون very expensive بريبان كنا مروكات تجي سأل مر بقف وسيني وحبي قدام أطمها أي مكا من تجي مروكا مر لبعض لو جورا تجي لكن مركا ما تجي مسافر كان لبعض سنة ده مكا لو دا كانوا قلنا marka day cream wuxuu fiicay dry skin qofka wajigiisu qalin yahay anyone wajigiisu qalin yahay is going to help him habeenkii waa soo haray habeenkii waxa la ugu tala galay dadka madmadowga leh ee cuncun kale aad baan salaamay walaalayaal ee wajigoodu cuncunka leeyahay ee finan kale ee dawooyinku iyo dhiiqadu iyo wax walba aragtid bay saaraysid ay daashadeen waa loogu tala galay maxay tahay night creamka marka night creamku waa cream saasoo buniya urtiis waxay urtaa sida coffee وصل الكوفي وكوفي وتضعت ملغرام ولوين عدد وين ده isaguna in yarbo inta leegun baad wajigaaga wax yar ka marnaysaa labada dhaban halkaas saasaad markaa u marnaysaa wajigaaga waa creamkaasna dabiiciga ma baahan in badan baan sharaxay waan ka daalay laakiin marba hablo cusub ay ugu soo biiraya kaasna waa kaas jirkaaga saas uu geli habeenkaad ku seexanaysaa dhac waxa soo kacaysa subaxdii waad iska meeraysaa waxaad wajiga ku meeraysidna adaa garanaya hablo badan waxaan sameynaa imka saabuunta iga dhamaatay laakiin insha Allah taala jimcaha la keenaya jimcihiisa wiiga dambe saabuuntii amal saabuun iyaduna fiicnado creamkani waxaan company wada socday ahayn laakiin saabuunta waan joojiyay qof walba wajigiisa wuxuu ku meeraa wax u gaara isagu garanayo okay habeenkii waxa loogu tala galay cuncunka creamka cuncunka inuu qaabiyo cuncunka wajiga hablo waxa jira wajigoodu raf yahay chemical waxyaabo loo yaqaan chemical aad baan salaamay walaal macaani chemicalka wuxuu yahay chemicalku wajiga waa fiican ragga ma fiicna dumarna ma fiicna chemicalku wuxuu sameeyaa wajiga intuu ku cadeeyo uu ka dhigo wow ka dhigo bad heat aad agsaakilin heatka ku gubaya walaalaas ku casaanaya dhac markaas ay dholo wixii markay casaadaan jirkaagi skinka hor ka dhinto waxa soo baxaya kii ugu dambe way bini aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala abuuray wuxuu siiyay jirkiisa intaasoo dabaqadood baan leenahay marka dabaqadaha hadaynu maxay ka faa'iideysanoon ka ilaalin wasaqda iyo inuu diirka waad ka qaasa wajiga markaas cadaysid bakii kala qaasa kii saddexaad baad qaasa خلاص wajiga wuxuu noqonaya wax markaa jilicsan waxa laga yaabaa xitaa inay soo baxaan maxay tahay xididada wajiga hablo waxa inta qoort wada xidida qacmo wada xididayn markaas cadaysid xididada wada yeelanaysa waa jirkii baad dishay waad ka qaada diirkii hore kii salaad ka qaad waxaad noqonaysaa wada xidid adoo dhanba wada xidid green ay yeelanay wajiga halka qaar baa kula xidido halkan kula xidido halka xidida ka soo jeeda halkan laabta wada xidido maxaa keenay diirkii baad iska qaaday oo jirkaagii hore dabiiciga ahaa ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyay cimiladuna ka ilaaliyo iyo maxay tooy dhaxanta qabowga baad iska qaaday markaasaad maxay tooy samaysay maxay tooy diir kale oo dhishay marka chemical ma wanaagsana waxyaaba xanuun badan baa laga qaadaa kansarka laga qaadaa kaliya xanuun baa laga qaadaa dawooyinka wajiga la marinaya qarmuun xitaa waxaan wallahi bari aan tagay Hargeysa waan yaaba habla shaqeynayay oo yaryar waliba aad u yaryar waxaan ka yaab waxaan ku hablayo dhididkoodii wajiga inta qariyaan dhid qofku uraya xitaa markuu aad qofkiisu cadeeyo wuxuu yeelanayaa ur gaar waxta yeelanaya dhid ka soo baxay waa dhid qarmuun way chemical baad isticmaasho waxyaabahan dhiiqada loo yaqaan loogu tala galay dornafaadka iyo maxay bornafaadka mid kale Ethiopia laga keeno baaso green iyo waxaasoo wax loogu tala galay xanuuna loogu tala galay calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa loogu tala galay xanuunada jildiga loo yaqaan awalba eczema badan cuncunku fara badan iyo caruurta markay ugu googo'aan iyo meelaha qacmo googo'aan eczema loogu tala galay waxa loogu tala galay 3 days wax ka badan inta isticmaalaan iska tuuraan laakiin Soomaalidu waa caad talaagada baa gashdaba markaas la habeenkii marka la saxanay inta biyo lagu daro saa loo marsanaya يا كو قري
يكونوا بيا يكونوا جيرك waxay fiicantahay caafimaadka uma fiicna caafimaadka waa chemical xun uma fiicna wajiga aad baadin salaamay hablo uma fiicna wajiga hablo aan ka maarmin baa jira hablaha Soomaaliya jooga wallahi in maalinta muqdisho igala soo oo gina yar waan kan maxay kamardan u furkuud habar furban ku kamarada furtay maxay samaysaa waxa tadhiiqa laga iibinaya bahal la qooshay ana xataa waxa arkay كريمة لقوشيو أو مشين لجلنا مشين كعصارة لو قلت لك العصير كوشي دنا فروتك أنت الله يسكت دراسة وش لو توتشنايو بمشين كلوش ده دمرك وحول بالجيبين كلام بس عادل وقوش بقى مثلا قرنا حكاية يا واو إلى يسلكوا أبو رح كفي عم ترت كل واحد أسلك يسوي كفي هذا عد يسد هرب أم دوبان ترتي فده حد دونك قف كون الله سبحانه وتعالى خلقه وكأبوره آد بعد السلام يا بلا صدره هذا في عن خلقه إله وحكي في عن متره لكن قفك إلى دوام بدل يا خلقه إله أول عضينا أو عضان بنكر عدنا إلهنا كو أبوره إن تكلم ككل رتور ناتشر الله سبحانه وتعالى كسي قفك أمركوا عضيا قرح محمد كلام صونا ما تجي كلام مال هي ده مش كلام مطبخ ما قال كلام بالكوار قفك ولا ده أنت ما كرين كلام ومطبخي بقى جبنا يوان أولو يا عم بقى هي صاص هبين مال وإحساس ببنا محاكم لبي شركة هذا كوك قرع سنين وكلر الله سبحانه وتعالى كوك كلر سنين كوك قرع سنين قف واحد ضعيف وقوة ده بكاء لكن عداء سوى البره بوقف كيسو عداء فراس مع عداء هالكاس وين مدو بعده قبلها صعب مركز أنا دوين كوتش جاي كيسو عداء نقع ساسير هذا ركنا صورنا مدو بعده سماء هذا ويكل عد ويكل مدوين marka waxa markaa sawirkiina faanto inta kala kook ina noqoto ma qurux badna cadeentuna faa'iido ma qofka haduu is cadeeyo waa bila shakhsiyadba isma aaminsanaba isma ilaahay sidoo ku abuuray la dagaalamay sad leedahay ilaahay maxaad ii madoweys ilaahay maxaad ii kalarka adiga dhigtay kalarku ilaahay kugu talagalay ilaahay ba kugu talagalay ilaahay baana ku siiyay waana haybad lagu garanayo kalarkaaga laakiin hadaad adigoo madow lagu yaqaan mar qulus cadeysid imka ragaaba is cadeelo waan ka yaabanahay hadaa intu wax ma tarto madowguna qof walba suu ilaahay oo abur waa kalalka ugu qurux badan leh adag ee qurux celin kara Michael Jackson wada garanaysan intuu is cadeeyay noloshiisu dayac oo cabdan ay daba galanayeen kalalkaaga bedelo oo ugly baato nigar baato mش عارف shino baato ilaa marka dambe laayad ka qaatay maxaa ka dambeeyay chemical baa lagu wada shubay sanki baa loo dheereeyay timiyaadka baa loo jilciyay gabigiisa oo dhan baa wada chemical laga dhigo la wada meera maxaa ka dambeeyay masgaan walaalo soo kiisa ku tagay خلاص marka waa chemical ka iska ilaaliya waxyaabaha dabiiciga isticmaala waxyaabaha dabiiciga xitaa qudhooda qaar baa loogu talin wajiga la mariyo dad baa waxay doonaan iska soo dhigay orna waxa saa wajiga la mariyo wuxuu bari research ka sameeyay oo baara qofka dul waxba khalin gaar xitaa qof wax yaqaan weydiiya walaal waxaan sameeyay laakiin hada wax baa iskaga dayataan wax walba soo dhigaba mid walba isku taagto wajiga ku googo waxyaabo lagu talagalo wajiga xitaa siir kula aad wajiga marisid way ku dhawaad laakiin fitamiinada cuna aan waxaan kula talin hablow hooyooyin baatiin waa shaqaysaan inta waa yaacaysan waan dareemaya waxaan ku jirtaan hawlaha ku jirtaan mid iskuulkii quraacad subaxdina waxaad u quraacatan sida boqorka you have to eat breakfast like a king belly subaxdii waa inaad quraacdaada wada dheelitiran cuntada aad sabax alkhair aad wax walba oo subaxdii ku quraacan kartid haday beed noqoto haday noqoto maxay tooy faasuulay haday noqoto haday noqoto fuul haday noqoto fruitna aad ku darsato shanta fruitna la cuna maalba tufaax linta muuska yani every day wana shan fruit oo kala nooc aad cunta subaxdii wax walba aad ku quraacatan heli kartid cunto fiican oo isku dheelitiran aad cunta marka fitamiinada ka dabageysan ha ilaawina fitamiinadu waa very important wallahi alcadi inaka jirkeena Soomaaliyeena wax ma cuno inta fiican ma cuno hilibkana iska ilaaliyo waxyaaba hilibka waxa laga qaadaa gabow baa laga qaadaa hilibka waxa laga qaadaa cholesterol baa laga qaadaa qaseer baa ka sheekayna ku saabsan hilibka haddaad aragtid waxa la yiri libaaxu hadduu awr qaniino meeshuu ka qaniina awr hadda waa taqaan awrku waa kamalka hadduu qaniino libaaxu awrku waxa laga yaabaa 3 shil ku bogsado meesha uu ka qaniine laakiin libaax hadduu libaax qaniino oo meel goosto wuu dhimanaya meesha way qurmaysaa dhowr sano ma buu ku dhimanayaaba way libaaxu wuxuu ku nool yahay hilib buu ku nool yahay hilibku buu cunaa wax kale ma cuno dhiigii hilibku buu libaaxaas cunaa wax kale ma cuno hilibku ay maxay tooyay libaaxu wuxuu ugu jiraa qaabada ama ugu jiraa kaynta inuu hilib cuno bini aadam iyo hilib xayawaan wax kale ma cuno laakiin geel wuxuu ku nool yahay cawsku cunaa cawska fresh ka buu cunaya markaasoo siinay quwad bay siinaysaa meeshaad saa uga taabataa way bogsanaysaa marka hilibkana waxa laga qaadaa gabow baa laga qaadaa weegii bishii mar laakiin haddaad maalin walba ku qadaysid hilib dad baa yiraahdo hilib hadaan cuno baha qadaba wax shan ma ahoo wax walba hilib baa ku jirta wax walba hilib baa ku jira ma hayna hilib noqoto khudrawaat mushakkala baa fiican caruurta yar soo korayso kale waa siin kartaan weegii
laba cisho ama maalin qurasaysa hilib yaroo dafiicano waliba kuwa la shiilitaanka subaga ma kuwa marqa laga saaro kale subaga laga dilo karasol way karasol kuwa khatar dad waxa halka saacata oo aad u dhibanayo karasol nafta ka qaadu dilay waa dhiiga subaga jirka galoween xidada gala marka kaas ma fiicna kalluunka ku dadaal hadaa kalluun weydaan al khudrawaat iyo maxayto allahumma salli ala sayyidina ahmed fish dad baa nacay fishka waa nacay urtiisa kariskiisa mushkilad maaha wiigi mar intaad suugi wixii sida buharaadkiisa marsul lindaan fil ku afkanka gelinaysa bas ama steam bad ku samaysanaysaa khalaas wad cunaysaa jirkaaga wuxuu noqonayaa jir qurux badan oo isu dheelitiran meelaha soonayaashana taga jirka waa wasakhadan iyo waxaan dad skinkaad ka dishaa oo baxayto scrap fiican iyo soonayaasha meelaha wajigaaga soona gelinaysa rafka ka qaadayso finanka ka qaadaysa waxyaabaha la qoosho inta badan youtube-da ka daawataana waxa jira waxyaabo wajiga khariba oo wajigaaga aana ku anfacayn wax walba markaad wajigaaga marnaysid akhriso side effect uu leeyahay waxyaabaha laga sameeyay waxyaabaha caynkaas biyaha fara badan oo aad loo cabo anu waxaan kula talin lahaa Soomaaliyeed daawanaya walaalada aan jecelahay waa inaad 8 koob biyo cabta I don't think so Soomaali qof Soomaali 8 koob biyo cabo mushkilad maaha waxa jira biyaha leendaan baa lagu tiir in yaro leendaan lagu darsadaa leendaan taas nadiif jirka ka dhigaysa laakiin biyaha ku dadaal qofku haduuna biyo cabin jirkiisu uu dhimanaa jirkiisu ma soo kacay jirka ma waxa jirka gaboobay maxaa jirka gaboobiyay waa biyo la'aanta thank you abti macana jazakallahu alf khair xabibti qofka haduuna biyo cabin waa dhibaato weena biyo cabtaa biyaha la cabaa biyo way fiican jirka way fiican biyo jirka waxay u nooleynayaan tabaqada dhimatay biyo waxa yani wajacalna almaa kulli shay hayya bal waa aaya quraaniye biyaha ilaahay subhanahu wa ta'ala wax walba biyo waad ku noolaan kartaa biyo la'aan laakiin noolaan kartid hadda biyaha laga jaro wad dhimanaysaa laakiin biyaha waad ku noolaan kartaa cuntada joojin kartaa marka biyo wax ajiiba biyahana hal lacab oo hal la badsado as much as you can inta ka horeysa illa 6 subaxnimo subaxda 6 illa 6 galabnimo biyo wad cabbi kartaa wixii ka dambeeyay biyaha habeenkii waxay soo bedelaysaa kaadi farabada hurdada way ka akhribaysaa wixii ka dambeeyay habeenkii 7 ama 6 ka dambeeyaba biyo khalaas laakiin inta subaxda oo dhan ana saabiyo cabta caagid biyo wadataa gaariga ku sidataa jeeb ku sidataa mar meeshaad maraysidba weenad biyo haysataa xaqiiqatan biyo aad ugu fiican jirka hablaha dhalinyarada ee wali guursan ee wajigii ka dhintay ee dad waaweyn ka dileen kan qaado kan waabala kan waxa kobciya la waxyaabo loo yaqaan wajiga naaxiya maxaa ku naaxinaya horta naaxitaanku waa loo dhashaa caatadana waa loo dhashaa haddaad isbuuraysidna cunto yaro laakiin kiniin baa lagu siinaya bacna waa lagu xirayaa bismillah waligan horta waxaan kala maan jahliga inta leeg iyo dadka masaakiinta ay rumaysan dadka caynkaas waa kubciye maxaa la kubcinaya sidaad u luqi kartaa kiniin u naaxi kara haw intaan kiniin luqo aan qarxay u naaxiya subhanallah waxyaabaha soo dhan waa chemical jirkeena ma fiicna China iyo balaaya soo nooga yimaadeen balaayo dhan oo laga bartay iska daaya haddaad dabtana isnaaxisid cunto yaro fiican cun laakiin kiniin baan ku naaxaya oo waan is wada buufinaya oo dhan walba ka wada bumba noqonaya maxay shay barut waa cudur gebigood waa xanuun socdaba cunto fiican oo isu dheelitiran oo vegetable ku badan yihiin vegetarian ku far badan yihiin hilibkana iska day habeenkiina hababa cunna hilib dadka cashooyinka habeenkii xafladaha markay tagaan la soo hordhigayo wasarada hilib iyo saqda dhaxal 12 habeenimo hilib aad cunaysid kullu waxa lagu wada gaboobaa hilibku waa lagu gaboobaa oo cumri degdeg baa laga qaadaa wax allah wuxuu faa'iido leeyahay ma jirto marka waxa idin fiican kalluunka iyo digaaga inaad ku digaaga badan ma fiicno timu ka saa wajiga ka saara hindida wada aragtan galbi wada leeyahay waa digaaga cunayaan digaagana iska yaa laakiin vegetable ku bata waxyaabaha greenka in jirkina xaqiiqdi ha galeen iskana daayo waxyaabo la isku cadeeyo walaalayaal wallahi cadaantu ilaahay ku dhaliyo wax ka wanaagsan ma jiro laakiin haddaad taado waan is cadeynaya qof baan ku dayanaya adigoo madooba is cadeysid adigana waa bad xishoonaysaa bad kalarka baad iska qaad aan waxa arkaa dad xitaa diirka iska qaadaya oo inta bac lagu xiro waliga iyo allah qof bini aadam aqliga ku jira xayawaanka xitaa diida in bac lagu xiro xayawaanka ay ka mid yahay baaba diid la bac lagu xiro balka oo qof bac lagu xiro gabiga wax lagu bac baa lagu xiro min madaxa ilaa lugaha bac inta lagu xiro baa lagu fariisanaya inta lagu saaraya bal hadaad bac imika xataa waxaan ka baqan wajiga inta wajiga bac isku wada xiraan naqas ku dhagaba dadka wada dhintaan buu naqas ku dhago dam halka ku baqtiyaan bacanaha isku xirina ilaahay sidoo idin abuuray deysta qoraxda subaxdii ee wadankii ay joogtaan Afrika habla joogo ka faa'iideysta waa vitamin D aad u fiican oo jirkaaga dhisaysa waxyaabaha naturalka marsada laakiin bac la isku xiro iyo balaayo la qoosho mashiinka la gelayo inta waxaan daawaday cajad la soo diro waa nax rag baana sameeyay waxa
إلهي لبضع نوح كحدة لبع على كي سومالي أنا على كي صومالي كحدة على كي صومالي ده لبضع يعني هو سوى البحر الجو قرطية رب الجو صار مركزون تساق هذا المشين كان خلاطة ده عمتض الجو عنا إذا تفاحية عنا عمتض كود ده شيء ده فواكه خلاطة دي مساق هذا وحيد مكوض الجرا دول صالات وشناي بلاي درنا فاض كريمة وين كوشر كلا وطلع قال بام كوشر كان كلا كوشر كان كلا كوشر اسقوط شدي حدا عاد كوشر فيس كريم وايتن كريم waxa lagu qor marka wajiga kii lugaha kulli waa wada wax yar midna wajiga uu ka dhigay midna wuxuu ka dhigay boordiga uu ka dhigay faylka loogu jiro ilaahayga maxamed sameeyay hablaha faylka ugu jira ee wada naqaabka gashan ee iibsanaya aniga waxa iga soo hadha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi qofkan bini aadamka waxa sameeynaya tolo aakhiro ilaahayna waa kan arkay labada milkna way qorayaan ilaahayna waa ka ishiisu ku arkaysa tolo mun ilaahay qofkaas ka cabsoonayn habla yar yar wada fayl ugu taagan $50 $60 20 oo qofkii ka soo u haysan una shaqaysan oo reer danyar xitaa ka dhashay waxaas isku darajeen laga wada keenay dubi baa laga soo qoday karaatin laga soo guraya bam wallahi intuu saa u malqaad saa ugu walaaqay sida fariis xitaa ka xidhay inayna gaarin chemical bal ka waran chemicalka malqaad lagu walaaqayo ee qacmaha galaafiska loo xidhnay kii sameeyay adigana ku siinay bal ka war waa adnaad wajiga dhaq ku dhaaqaysa wixii ba soo qaado waska sidaas waxaad aragtid ba wajiga saar habeenka wajiga inta radisid oo gabigiisaba wax mask cad wada xirisid ku seexo habeenka saa u seexan barkimada waa soo wajiga wuxuu leeyahay masaamaad buu leeyahay wuxuu leeyahay dhibca yar yar inuu ku arkeen sankan xigta ku aragtaan oo daldalo hawadu u baahan yahay hawadu baad baloo garays gabigii hawadii oo dhan baad naqas ku dhajisay madaxii man physical hawadii baad ku xidhay wajigii wixii oo dhan baad habeen ku seexanaysaa karin habeen karto lagu seexdo khafiif inta soo jeedid marka iska meero seexaba laakiin wajiga dad baloo garaysid halku ka nafisi la ina wajigu nafisaay bal gurigaas maanta bila daaqad soo kaco bila daaqada ha furin oo daaqada ha furin guriga dhan wuu uraya daaqadaha dhaan baa galay way madoobaanayeen biya ka da'aya waa inay hawada helaan subaxda marka saayinda kala qaadi waa inay daaqadaha guriga dhan wada furtaa madbaqaad kulli guriga noqda air fresh oo gasha wajiga bini aadamkana waa caynka habeenkii markaad seexanaysid inaba wuxuu ugu dhibir warniyo wuxuu gabadhi baan ka yaabana maxaa dhacay wallahi waxaan qasasay ilaahay baqaas kale maxaa dhacay wuxuu habeenkii markay seexanayso waa nuurada wajiga la soo gelaysa bahal nuurada inta kale waa caadi mar allaaliya markaan aanu seexano dadku ina way seexdaan habeenkii ma soo jeedaan inta ka dhigaysaa buu nuurad bay gelinaysaa nuurad gabigeeda bahal cad waan baqaabuul ma taaban kali de ma dhunkan kali gabadhi waatan da wajiga gabigeeda hay dhawaan waxa dawooyinka wajiga inanka wuxuu shahaata de san kuma noolaan kale habeen walba waji nuurada xitaa caruurta waa saasaysa habeen markaad wajiga wax weyn oo cad saarto kariimo isku wada buufsad tad waan seexanaya oo bal ilmaha yar habeen bal soo yar baraarugo ku yimaado waaw kiyada doo khalaas oo ka muraar dilaa ama nafta ka baxdo naxdin ee baqayba marka waxaad habeenka doonaysan maalintii caadiga haduu casarkii oo kale ismariya wajigiina nadiif oo maydhay oo clean ka dhigto night cream kaagi marsto khafiifka aha la seexo laakiin ta hadan ka dhigo habeen walba dhooqa oo ku dhex jiro dhooqa cad ta waxaad xidhay masaamaadkii wajigaad xidhay hawo waji ku soo gali mayso maxay to adiga waxa xitaa hurdada kugu deeqto de islaali baad ku jirtaa qof haduura ya oo adiga faraag ka ilaashan barkimada ba ka wasaqo ninkaagi de muxuu yaa marka waxaan oo dhan waa masaay ilaahay soo ku abuuro wax ka fiican ma jirto khulqiga ilaahay lama bedelo wax walbo jirkaaga caafimaad hadaad qabtid alxamdulillah dadka xitaa waxaan ka yaabaa isdhuuba ee ismudmudo ee turkiya taga ee halkan soo jira halkan sii jira maxaad ilaahay soo ku yani waxyaaba exercise la yiraahdo wax ka fiican ma jirto lacag hadaad gelisid ilaahay yani ilaahay baan la dagaalamaya sidoo ay abuuran la dagaalamaya ilaahay baan la dagaalamaya oo waxaan rabaa inaan maxay too dabnaha marna taago oo irbada ku mudo afta noqdaan dabnihi oo halkan naaxiyo oo ilaahay tiisiya ilaahay soo ku abuuro kugu talagalay waayda khulqiga ilaahay baa iska maalintii ilaahay ku abuuray buu soo farsamada ku sameeyay laakiin farsamada ilaahay baan la dagaalamaya waa mushkilad wallahi waa mushkilad laga yaabo dabnahaasna bari bayna haysteen oo yaa tii adduunka dhacda oo dadka xitaa cancer baa kugu dhici kara qofka markuu xitaa waqtigiisa qaato inuu qofka markuu dhasho uu koraya uu weynaan hadaa kaad waan siyar yareynaya inay yar baan iska dhigayaano maalin walba halkan iska soo mudaya oo irbadii biyan ku nool halkan xitaa qaar laga mudayo arko biyo loogu shubay halkan qaar wallahi waxaan arkay adduunkan ka yaab bini aadamku war la weynaanaya oo qof yaraanaya ma jirto laakiin hadaa kaad waan yaraanaya oo la gurado waad yar tahayna oo caruurtiina ku dhaaftay tee marka waxa ku dhacdan waa kalsooni darro waxan wallahi العظيم هذا يعني شيء ما يخش الراس هو شيء قريب سبحان الله
markaa siduu ilaahay ku abuuray wax ka wanaagsani ma jirto khulqa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sii haddii lagaa dhaadhiciyo waad yar tahayna oo lagu yidhahdo waad yar tahay oo tartaba lagu gelaa inay run sheego weligaa maba koraysidba oo habeen iyo maalinba irbadun halkaa lagaa geliyo halkaa irbada lagaa geliyo halkaa irbada lagaa geliyo halkaa irbada lagaa geliyo oo gebigaagiba ku noolo artificial life maxaa kuu kalifa artificial life waa inaad kalsooni yeelataa waa inaad jirkaa ku maxay toy ku kalsooni ku yeelataa waa inaad caafimaadkaagu ku dadaashaa cunto fiican hurdo fiican waxaad afkaa gelinsaad ogaata laakiin haddaad taadi waan yaa anigoo dhan baa iska dhagaya jaraqa oo waxaan ina yar baa laygu waatay dee way ku dhamaatay finish hadhow khalaas caqligina waa ka weyn tahay oo qof weyn baatay jirkiina waxaad ka dhigtay ilmo yaroo daya markaa exercise way fiican inuu qofku cararo baaskiil ka haysto gym tago dabaasho waxyaabaha natural ko dhan waan aad baan aan taageeraa laakiin waxyaabaha kobiga oo dhan iyo waxyaabaha artificialka oo dhan iyo waxyaabaha ku dayashada oo dhan iyo waxyaabaha kabadbadiska oo dhan anigu waan ka soo horjeeda xaqiiqatan waxaan jeclay qof walba inuu natural noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu kugu talagalay aan ilaahay la tartamin aad caro ilaahay qaadan imisaa iscadeeyey oo maanta ay qariya ku jiraan imisaa isjarjaray oo isbaabi'iyey oo qurmay oo lacag laga qaato maan taagan qofka hadduu xitaa isqalqalo baruurtii way soo koraysaa waayo intuu isaga lacag baa laga qaatay wakaas turkiya u tagayaa suuxu dambu samaynaya lacag baa laga qaatay hadhown waxay kugu soo noqonay waxay lagu oranaya cuntaha cunin waatana faytaminada oo dhan baad iska mamnuucda kaa cunin maxaan haddaa cunaa kiniin baan ku nool haye kiniin baad ku noolanaysaa hadhowna caafimaad darra kugu dhacaysa waxaa kugu dhacaya nafaqa darro hurda la-aan baa ku iman karta adigoo dhan baa qorato noqonay wada qallashay maxay qallaji waxaan cuni kale wanaagsanna waan cuni waana noolanaya laakiin haddaan adan waan is wada taxakumayaa diet baan is wada gelinaya gebiga waxaan iska dhigayaa saasoo waan is wada yaryareynaya gebiga waxaan noqonaya qorato dee qorato cid uma baahna waa inaad wax walba cunta oo isu dheelitiran 6 wixii ka dambeeyana cuntada joojisaa 6 o'clock no more food fruit حتى أدو وحنا كده بيلح خلاص إلا أنت كهر رئيسنا بني آدم بتوعد عني كرتها وتشركها وعنتد واه لكن هبين كيمر كان عنتد بدل عنتد عواش ما مشيدي سع عنتدي حميتدي بقى عنتدي شيدين أجلس ما سمعين سواي عنتدي ما تشيدين وتكسر حتى مركزي أتجيب ميال بكاجلي سع عنتدي صباح دي كونسبيشن باقود عايز ويلكس بعين ما جلسين أرجع حلا ودوا دين كوتشر عبد الله عبد كوتشر سقدر حدثك عشان قرطاء أرسمك يا مدام كود يلا بدا هيدي بكيسكولي داية عنتد عضق هبينك صوت ساحنسا ماشي ود نفتح دبيسه لا عبد الله قفك مربد رفنا صارت تكون رفنا لكن ايرلي everything waa early marka anigu nimku waan baxaya gymka yar tagay 2 saacadood in customerkayga waxaan leeyahay marxaba insha Allah taala in amal kalimna wuu yaala hablaha doonay udgoonka iyo unsigana unsigii xalayto 15 xabba hablaha qaatay inta kale taalana qofkii doonay uu igala qayb qaadan karaa udgoonka wax walba qof walba waxba isaga u gaaro isugu jeceliye unsigana wuu yaala dalban kartaan insha Allah taala qiimuhu waa qiimo wanaagsan ashqararna way yeelaan لكن هبلا Soomaalidu walaalayaal aad baan idin jeclaan ugu ilaahay darti baan idin caawinaya wax kale idin kama la uriid minkum jazaa faytaminada jirkiina galiya xitaa waxa jira aan soo ilaabe faytamin loo cuno timaha iyo cidiyaha way noqdaan natural ma hina tarkiib saartid anigoo kooyga waa natural keedi wax tarkiiba ma xaqiiqatan waxa la cunaa faytaminka cidiyaha saaraya timaha saaraya uma baahan xitaa inaad baaruukad xidhatid ma baahan waxa go'an baadaaba samaysan kara wax walba marka aad iyo aad baan ku mahadcelinay walaalayaal ilaahay baana ma hadda laga helaa anu wax badan kama baahni wala subscribe wala share wala waxaas oo dhan waa wax aniga ii free xagga insha Allah taala laakiin faytaminada cuna oo subaxdiina u quraacda sida boqortooyada quraacda wax walba aad heli karto oo dheelitiran wanaad cuntaa cashadana habeenkii waqti dambe aan la cuno lagu seexan hilibkana iska ilaalisan والله هلك ما في عنها بلا والجو جبوبة والجو حنوصدا والجو عمر الدجدجة جبي يوسف ضدك واحد كل أنت ما بكرين كان نبه دويل كتيرين وحي كلام قروح البضناية طبيعي جهنا ونكوض عرينا مركا إن شاء الله تعالى وقت جاي وصعدا أو طبعا كل مجال لك واسك أريبا مركا إن الحين دون يا إن كفائدة ستان إن وحيابها إن محيطوا خضروات يعني وحيابها جرين كانوا بتصدا وحياب والب أو جرينة oo arkaysaan wada wax qurux badan wad aragtan green soo qurux badan marka cuntidna balka jirkaaga gelisid aad maal baxab xabiyar shamaam yar en cucumber yar tufaax badbuus xabad leena dadka hablaha constipation ka qaba ee calooshu taaganta waxay maalmaha jirtaa leeda 1 apple a day keep doctor away xabad tufaax maalintii cunta dhaqtarku way ka fogaanaysaa caloosha haddii mar calooshu ku taaganta rag iyo dumarba noloshada u dhamaatay
dadka finanka badan waxa ka soo saara waa constipation wani caloosha ku taagantaad wuxuu cunaysid aan wasakhdina ka baxayn oo kugu waxa ku dhacay inaad culaysnaatid waxa kugu dhacay inay maxay tahay Allahumma salli ala sayyidina finanka soo yaacaan waxa dabeecadda xitaa ka xumaanaysa dabeecadda ka xumaanaysa xitaa marka caloosha lagu dadaalo in la socodsiiyo oo mar walba wax sahal laakiin hilibka iska ilaaliya saan idin sheegay libaaxu wuxuu ku nool yahay hilibka markuu hilibka cuno meesha laga qaniino haduu libaax kala qaniino ma bogso sidii uu ku dhintaa kamalkan waa idin sheegay awrka dheerna dee suu waaka wuxuu cunayaa waxa greenka uu cunayaa waliba kama cuno hoose dusha ku cunaa waa bahal dheer hoose ma fadhiisto awrka dusha ku cunaa wax freshka dusha waa markaas uu noqonayaa dee healthy marka healthy waa wax fiican lagu dadaalo chemical kana iska ilaaliyo waa the last time I will say to you guys chemical kuma wanaagsana waa lagu gaboobaa timahaaga wajigaaga shirkaaga dhanba fool xumaanaya hadhow waad qariya ka dhacaysa waad uraysaa kaliya dawada la isku cadaya kaliya duqaysaa idinku ma ogdin failed kaliya ku dhacda kidney fail ba ku dhacaya adu waad martay laakiin waxay ku galayaan chemicalka waxa loogu talagalay xanuunada cuncunka agsimada loogu talagalay dhakhtarka ku qoraya 3 cisho ka bacdi laakiin duwayo iska furanaya channel iska furan oo debra control ayuu maxay ku iibinayaan maxaa ka galay tmooti ilmuhu tishari adigu iibsan baa lagu leeyahay marka xanuunkaas laga qaado walaalayaal aad iyo aad baan salaamaya khayr fara badan baan kaga tagay insha Allah taala ilaahayna waxa idin ka rajaynaa qof walba inuu ilaahay wuxuu doona siiyo maanta qaseer baan ku qoslay xildhibaankii batul baa lagu dhageeyo gabadh baa soo caashaqday waxaan qisada maanta aan hayo laakiin insha Allah taala in laga sheekeeyo ma fiican laakiin adduunku wax walba inta nool waynu arkaynaa aan maqlay wax walba inta nool adduunku aan arkaynaa sidaas baan la yisbax macna wanaagsan inta waqtiga iga dhicin marka waxaan leeyahay bye bye wassalaamu calaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh jazakumullahu alf khair akhwani fillah bye